السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii Faallada Toddobaadka. barnaamijkeena maanta waxaan ku falanqeynaynaa caqabadaha CCS Plus ku hayaan madax bannaanida Soomaaliya iyo faa'iidada ay leedahay kala dirista faragelintooda iyo doorka shacabka Soomaaliyeed ee ilaalinta danaha qaranka. Dowladnimada Soomaaliya waxa ay haatan ku jirtaa xaalad jilicsan oo ay sababeen isdhexgalka danaha shisheeye, musuqmaasuq gudaha ah iyo faragelinta tooska ah ee hay'adaha caalamiga ah iyo wadamo shisheeye sida kooxda loo yaqaan CCS Plus. Kooxdan oo isugu jirta wakiilo ka kala socda qaramada midowga Yurub, midowga Afrika iyo dalal saaxiibada Soomaaliya ayaa si muuqata uga dhex muuqda siyaasadda gudaha ee dalka, iyaga oo marar badan sameeya go'aano saameyn toos ah ku dhex leh madax bannaanida siyaasadeed ee Soomaaliya. CCS Plus iyo saameyntooda siyaasadeed haddii aynu ku horumarno, kooxda CCS Plus waxa ay si rasmi ah u sheegtaan in ay taageero u hayaan dowlad dhiska Soomaaliya, hase yeeshee ficiladooda dhabta ah ayaa mararka qaar muujinaya inay yihiin madax dhaqaajin siyaasadeed oo u fakeraysa si waafaqsan danaha dowladahooda ama hay'adaha ay matalaan. Waxaa dhacda in CCS Plus inay cadaadis saaraan dowladda federaalka si ay u aqbasho xanaan doorasho oo aan lagala tashan shacabka, in ay qeexaan cidda loo arko hogaamin hufan iyo cidda lagu tuhumo xaglin siyaasadeed, taas oo faragelin ku ah go'aan gaarista gudaha, in ay maamulaan miisaaniyada waaweyn oo deeq ah iyaga oo go'aamiya cidda wax ka helaysa iyo shuruudaha la marsiinayo. Waxay dhexdhexaadiyaan khilaafaadka siyaasadeed iyaga oo mararka qaar xoojiya dhinac gaar ah si ay ugu fuliyaan ajandayaal u gaar ah. dhegeystayaal, waxaa muuqata faragelinta joogtada ah ee CCS Plus inay xakamayso awoodda madaxda Soomaaliyeed in ay qaataan go'aano madax bannaan, taas oo meesha ka saaraysa sarreynta sharciga iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Haddaba qaybta dambe ee barnaamijka waxaan ku eegaynaa caqabadaha madax bannaanida qaranka ee kala kulmayso CCS Plus. faragelinta CCS Plus ayaa si toos ah u dhaawacaysa: 1. mabda'a madax bannaanida siyaasadeed. Dowlad kasta waa inay xaq u yeelato inay si xor ah u go'aansato mustaqbalkeeda siyaasadeed. Waxay dhaawacaysaa kartida shacabka Soomaaliyeed in ay si dimuqraadi ah u doortaan hogaankooda iyaga oo aan laga cabsan faragelin dibadeed. Waxay caqabad ku yihiin ictiraafka qarannimada dalka. Marka hay'ado shisheeye si muuqata u hogaamiyaan doodaha siyaasadeed, waxa ay hoos u dhigtaa kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay ku qabaan dowladnimada Soomaaliya. haddaba qaybtan kale waxaan ku eegaynaa faa'iidada ay leedahay kala dirista faragelinta CCS Plus iyo go'aanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku gaartay inay kala dirto faragelinta CCS Plus. kala dirista shaqada siyaasadeed ee CCS Plus sida ku lug lahaanshaha dhismaha dowlad goboleedyada, go'aanada doorashooyinka iyo magacaabista mas'uuliyiinta waxa ay u leedahay Soomaaliya dhowr faa'iido. 1. dowlad Soomaaliyeed oo madax bannaan. waxaa la helayaa dowlad Soomaaliyeed oo madax bannaan. waxaa suurtagal noqonaysa in hay'adaha dalka si xor ah u gutaan waajibaadkooda. 2. kalsoonida shacabka oo soo noqota. shacabka waxa ay dareemayaan in codkooda iyo rabitaankooda la tixgelinayo, inuu dalku helo xasilooni siyaasadeed. marka la tirtiro gacmo shisheeye oo isku diraya siyaasiyiinta, waxaa yaraanaya khilaafaadka joogtada ah. dhismaha qarankayaga oo waara. dowlad madax bannaan ayaa u gogol xaaraysa horumar waara, amni iyo karti dhaqaale. haddaba maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed si loo ilaaliyo madax bannaanida iyo danaha qaranka? shacabka Soomaaliyeed waxaa laga doonayaa in ay ka koraan wacyiga siyaasadeed. dadweynuhu waa inay fahmaan saameynta ay leedahay faragelinta shisheeye, inay kordhiyaan cadaadiskooda bulsho. mucaarad ama muxaafid, qof kasta waa inuu codkiisa ka dhiibtaa haddii madaxdu ogolaato faragelin shisheeye. in shacabku la xisaabtamaan madaxdooda. waa in madaxda lagu cadaadiyo inay ka shaqeeyaan danaha qaranka halka ay u adeegsan lahaayeen taageero shisheeye si ay kursiga u ilaashadaan. inay xoojiyaan midnimada qarankooda. ummad midaysan ma fududa in si sahal ah loo kala qaybiyo loona hogaamiyo. haddaba waxaynu soo garanay guntii iyo gabagabadii CCS Plus waxa ay tusaale u yihiin sida ay u adkaan karto madax bannaanida siyaasadeed ee dal aan weli saldhigan hay'adihiisa dowladeed. hase yeeshee, Soomaaliya waxay leedahay fursad ay kaga bixi karto dabinka faragelinta, in ay dadkeedu kacaan, madaxdiisuna go'aan adag ka qaadato inay diidaan siyaasadda laga hago dibadda. waxaa la joogaa waqtigii la oran lahaa Soomaaliya Soomaali baa leh,
danta qaranka waa ka weyn tahay danta shakhsiyadeed ama mid kooxeed. madaxda iyo shacabka Soomaaliyeedba waa inay si wada jir ah uga hortagaan walba oo wiiqaysa madax bannaanida dalkeena. dhageystayaal inta aan barnaamij la mid ah aan dib dambe ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay aniga oo ah injineer Axmed Sahal sidaas iyo nabadgelyo. qabyaladan didaya